daawadayaal waxaan ku sugannahay deegaanka Goobeyn halkan aan taaganahay waa afaafka hore ama jiinka webiga Jubba waa deegaan caan ku ah wax soo saarka dadkiisuna ay u badan yihiin beeraley iyo sidoo kale dad xoololey saad muuqaalka ku arki doontaan waa deegaan aad u qurux badan waxaanu ka mid yahay goobaha loo soo dalxiis tagay ee Jubbaland geedaha qumbaha ee ku teedsan webiga jiinkiisa isku darka biyaha badda iyo webiga dhul beereed ay ka baxaan noocyo kala duwan oo dalagyo ah xoolaha nool waa qaar ka mid ah kheyraadka ay caanka ku tahay deegaanka Goobeyn qof walba oo booqdana aad u soo jiita goobtan waa halka madaxda siyaasadda ee dalka markay yimaadaan Kismaayo ay jecel yihiin mar booqdaan si ay uga nastaan mashquulka siyaasadda inta badan maalmaha fasaxa waxaa deegaankan u dalxiis taga bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyagoo si ka haysta kuwa ay jecel yihiin inay farxadda la qaataan qaar ka mid ah dadka u soo damaashaa tagay deegaanka Goobeyn oo la hadlay radio Kismaayo ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan jawiga deegaanka iyo waxa ay ku doorteen Goobeyn magacaaga magacay waa Sagaal Jiftaa Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Kismaayo qaasatan meesha loo soo dalxiis Goobeyn meesha jidka u yimaado waxaa rabaa maadaama jimcaha tahay inaan soo dalxiiso oo baan jawi jimcaha soo qaadano asxaabtayda la qaato farxadda saas oo imaaday marka waxa leeyahay bilicdan ugu soo dhawaad wallahi jawiga waxa ku qiyaas ma aqaano jawi qurux badan waaye waxa leeyahay dadkeena soo gaaran meesha jawi kale leedahay ma qiyaas karo dabcan maanta xaflada leedahay xaflad gabar asxaabada oo jaamacada saldhigana qalinjibinayeen markii ka u imaan meesha dadkooda saamay xafladooda waxaan la soconnaa qalinjibinta inta badan xafladaha waxa lagu qabsan jiray hoteelada maxaa ku dooratay Goobeyn waxa uu doornay hawada freshta iyo dhirtaas cagaaran iyo doogan iyo webiga naga ina bilicda wadankan dadka tusano ugu dambeyn maxaa u baaqi lahayd dadka ku joogta waxa uu baaqi joogta inay wadanka soo gaaraan wax badan oo ka qarsoon jiro oo wadanka ka mid ah Goobeyn ka waran maxay kaga duwan tahay deegaanada kale ay leedahay aad oo qalkacsantoon oo shad wallahi dadka say maanayaan meesha jawigeedan cawda aad ku ha dib ugu soo noqda darkiini dalna wada hawa aad iyo aad u qurux badan jawi degan la buuqa kale waxaan dhihi lahaa ku soo dhawaada waxaad inta Goobeyn imaaday waxyaabaha ku farxad geli ama indhaha soo jiitay maxaa ka sheegi kartaa ka sheegi karaa horta webiga jiinkiisa aan joognaayo meel aad u qurux badan oo hawo aad u wanaagsan ka socoto midda kalena qumbihiyo maxay heeday lagu sameynaayo hadda ka soo dhacay geedka oo lagu sameynaayo oo iyadoo wax filter iyo waxyaabaha la soo marin sina jiraa la wada kuso sidoo kale dadka say u imaanayaan oo ay rabaan inay ku dalxiisaan meelaha loo dalxiistay magaalada bismillaahi raxmaani raxiim magacayga aniga ku bilaabayo Xasan Cadde runaantii maanta waxaan dalxiis ugu imaanay deegaanka dalxiiska ee Goobeyn aniga iyo asxaabteeda maalin walba oo jimco ah waana ku faraxsanahay inaan maanta imaado aan ku dalxiiso deegaankan aad u qurux badan runaantii waa meel qurux badan oo habadeeda aad iyo aad u macaan geedaheedu oo maaragtay dabeelada wata kaasiyo deegaanka Goobeyn waa meel aad iyo aad u qurux badan waa meel dalxiis ah waa meel oo webiga mara halka biyaha iyo badda isku daraan waa meel oo jawigeedu aad iyo aad u macaan yahay in la soo deganayo aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صوماليا سلامة إن شاء الله جلاله. ما أنت وعالم. فوي اللي ده. فوي بكر على ده. إن شاء الله مركا لكن مجاي صح هو محمد بكر. كلا ما أنت وعالم. waa tahay Goobeyn ku sugan tahay bal ka war maxaa ku dooratay Goobeyn Goobeyn waxa waaye indhaha nuurkeeda weyn waxa waaye indhaha mar walba
ما يباهيين أجارك يدوق كل إلا إنها باهيين ما يماتا مركب بس مركب ورثوا ما يقولون وعواي كسل مدة لكن إن دور ديرا بوجري dadka aan goobeyn imaanin maxaad u tilmaami lahayd haddii lahayd goobeyn oo aad ku aragtay ama ay leedahay oo aad sawir uga bixin lahayd لما درين كلام ملأ درين كدوبين لكن لما درين كلام خوف عجارة نحن أحمرويا كلا والله وحنا كأمثال كنا ممكن dadka Soomaalida ugu joogta laga yaabo marka ay daawanayaan maxaa u والبجوك ده بس أنت ما مرة المسلمين باهية إن شاء الله تماركنا ملأ وحنا عجارة تماركنا ما أركتنا كده كوري أكيد كده كسلون ما كان وعامو أستاذنا waxaa u baaqaysaa من كباقة ودم كوتوي أيكم روجين ما أنا كوي كراينا هنا سمال كليا حدي كلا إنا سنتين تجمع